Soomaali diin waxay haysteen islaamkii ka hor. قبل الإسلام ولا الله قريش وقبيل كل شيء نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم وقبيل إلهي دورتي الحديث كوعها إن الله اصطفى من ولد إسماعيل كنانة ومن ولد كنانة قريشا ومن قريش بني هاشم واصطفاني بني هاشم قبيل كاس مشركين بيهاين والثانيين إيهاين أي كلمة عرفت بدن كوذين عيب ما وعيبه إن رسالة الرسول مركي تبت إن لديه عيبه لكن لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون وما أرسلنا قبلك من نذير هذا نذير أن لا درن حتى القول الراجح تذكر عويا الفترة الإله marka inta diinta islaamka oo risaalo nabi maxamed aan u wadno intaan Soomaali aan soo gaarin mujtamaca ku nool geeyga Soomaali maanta jira waxay haysteen diin la yiraahdo wathaniya macnaheedu waa in sanam la caabudo shimr la caabudo madaahib dabiici la caabudo taas ayaa la yiraahdaa waxa kale aaminsanaan majuusi ayaa ka jirta xeebo u badnayd muqdisho baraaw waxaan ku rumaynaynaa طول إسويدين وثني إسويدين ما بلا قبائل كي بيجوا برجع سجري كي قحين هاد ولي واساسا وقبل أمسيه قبائل مصن الصومالي إني جزاء يصير كلامه أي مشركين إن غضب بلا أمسيه صايرين دلا وكلا بورنت وكلا وفعلا تحس أنا ما إنكره أنا إنكرين ضد كيني وقيلي هاد كوريدت كلا دقي أيام مركي دم أولاد أي صوعش darteed soo noqday ayaa dhaqankooda waxa ka muuqata inay sigteen halis ay galeen ayaa ma kaanad iyo kuwa ku sii haray oo maanta jira aan ogna aan ka warhayno dhulkaasi fog ay jira marka taa daraadeed majuusiyada calaamadeeda waxaa ka mid ah dabshidka nayruuz iiraan ama bilaad faris laba ayaamood ba weynayn jireen xitaa madiina nabi sallallahu alayhi wasallam rasuulku santayn waa laga ciidi jiray يوم النيروز ويوم المهرجان الإله رسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الله قد أبدلكم بخير منها وخير إلى أن يبدل يوم الأضحى ويوم الفطر انطلاقا من ذلك أنا وهلك كطلع بقاضينا وحكوا جرتين تبشيت كمركين مر ناس وقارت المقام دوا على الشدة ولا جبوده أضيق بالله إنسان تقول حكت عرورتها بضبط دب كان تبقى الله ينقارسي حكوا جرتين التحاكم إلى النار إن دبقر صور لك دكتو نبا واحد لابد دمبيد واوين بلو إكسدا دمبيد واوين حق أقوان تيدي أنت كورا كيسس كاز سغاشن إلا بدي قول كبكول ويني عفيفة ودورسن يا ويلشي نكذو يراني كامل درسك كلا عنق الله جارك كلا من أنا جماعة أدي أحماتي ذات كان أدي أحمادين أرجع أخير بلقي دبان وقال هذا دبكي بالشيء ذي قلول بالشيء ذي أرجع دقب كاسي قرية هسي لسوقري أي هلا عود ما هذا يدم بلا أي نقطة ay gabadhii soo weysaysatay nin baa la hadlaya marka dad baa qaabilsan dabka waa la dabow gabadhan hadii dembiga lagu sheegay qabto gub haddayna qabina badbaadi ayada agcad ay martay laba jeer baa la maraa marka hore waa la maraa oo lagu soo noqdo abidkii weligii qof bani aadan kale weligii ma damcina dhahday inaan gobol dhaaf aan sameey iska dhaaf فطريا تبع الأهانة تنبأ قليلا الوازع وعلى علماء أصول الفقه وعلى قواعد الفقه وعلى الوازع الفطري الوازع الخلقي كالوازع الديني في أخلاق هذا كاريبته أو واحد دين كاريبته ما نقول هذا وازع خلقي ما بلا هنا
weligii kuma haminin ninkii waa la ganaaxay reerkii markase lagu hagaajiyey dadka way martay wana soo martay way martay soo noqotay waxna ma gaarsin wax ma gaarin cajiib waxaa kaloo kiiska dilka hebel adaa dilay ma hebel ba anaa dilay ama hebel walaalkii hebel anaa dilaya daba la isha xukunkaas soomaalida qabaa'ilka dib u weydiiya waa ka jiray kiiskii ugu dambeeyey aan ahayo 92 waa reer la yaqaan marka هذه ميزة وآثار مجوسي آثار مجوسي نيروسكنا محوها نيروسكا نيروس عيد مجوسي صوما دين مجوسي عيد دي لبي عيد دين تزي لا سو دين لبي عيد ملا أنا لبي عيد لا يوم نيروز أما غالبا نيروز وحا استعمال بيرلين واستعمال سنتك قرح ضاع يعلم هذا أنا مركا waxaa kaloo ilaa qodob saddexaad baan soo xasuustay dabkaa la shiday micna ku fadhiya 360 maalin baa dhammaatay sanad nayruus baa dhammaaday marka in sanadka dhan dab lagu magacaabo baa luqadaha Soomaaliya ku jira xataa fanku ku jira marka taa marka waxay keenaysaa mid kale xeebaha Soomaaliya dowladda Iiraan baa imbaraatoriyada Farisiya magaalooyinka qayb bay ka asaaseen Muqdisho qayb ka asaaseen marka Baraawa Warsheekh ilaa qaybahaas waa aathar magaalada waxa weyn Bandarbayl Bandar Qaasim Banaadir kelimada bandar waa luqad Farisi macnaheedu yahay dikad waaye waxaa kaloo Soomaalidu isticmaalaan ninkii latnaada marka iska daayana ilaahay wax doon wareeda waa bandartay waa shabacday waa dhigtay intalaqan min dalika marka diinta wathaniyada taas ay marka tartiib culimadu diinta u gaarsiiyeen khayru mithaal kunta 736 wabigeena jubba luuq soomar jubba suma galbeedkiisii qof muslim ama deganeyn islaamkii ka hor سامك كنت طبعا تقول ولا كنت طبعا قال بار الأساسي الشيخ مرق بار الأساسي شيخ حسن يبرو بار الأساسي ويبقى واحد كم يجري مرد ما علماء ماشي ما ماشي لا غير شيء واحد دقالي بورنتي مرق بورنتي وين جربين واحد صوبر وتخصين أضو في عم بصوب قال بيتك ويبقى أسوق لي من جيلي ولحنا يا سوق لي جيل ولحنا بلا يجري مرة ويدته marka geelidan Soomaalida waxa kaloo in Soomaalidu carabnimadoodii aad u muujiya geela waxa weyn Arabay ka keensadeen wadan janjawi Soomaalida ka sadan ka digaalanta yani geelan waxa weyn waa dhaqan Arbeed in calaamad kala fiican waaye laakiin xilliga loo soo guuriyay oo dadka Carabta gees loo soo guurin taariikh hore leedahay seef yazin la yiriyo xilli hore kan soo guuri jireen ay soo degi jireen marka ilaahay yani xaqatan diin ahaan marka la yiraahdo waa laakiin diinteena islaamku waxa la qiray in Soomaaliya soo gaartay qarnigii koowaad ee hijrada nin la yiraahdo أحمد بن أفندي لا يراهو قرأ كتاب يراهو الجواهر الحسان في تاريخ الحبشان الجواهر الحسان في تاريخ الحبشان وعكسوا جورينا يا مركا أنا كتاب كيسمع الأركين وعكسوا نقلنا يا الله يرحمه الشيخ جامع عمر عيسى كتاب يراهو الصراع بين الإسلام والنصرانية في القرن الأفريقي ترت لولنجا كده هي إسلام كده كيس كفري وسوا قرأ كتاب وسوا قرأ يا dhulka webiyada u dhaxeeya koonfurta Soomaaliya iyo waqooyiga qayb badan Soomaaliya kamid ah dhulka Soomaalida wuxuu leeyahay kaan islaam mustaqir fil qarni thalith hijri qarni hijrada islaam mustaqir buu ah marka ayr baa loo riixay Soomaalida u sikatay watan hadda ay marayso dhul aad u fog ay marayso oo dacwada diintu ay gaarsiiyeen maanta dadkii yaacay oo koonfur Afrika iyo Zimbabwe iyo Mozambique iyo Kenya, Tanzania, Uganda, dhulka Afrikada tagay ilaa waxa uu soo saaray wadanka la yiraahdo Angola iyo Democratic Republic of Congo haqiiqatan ilaa koonfurta Sudan Soomaalida saameyn waxay ku leedahay diin fidan ah
الحمد لله. شيخ waxaad uga sheekaysay istaad waxa uga sheegay taariikhdii oo mataqaana islaamka diinta ee Soomaalida ka hor islaamkii kadib waxa maxay tahay cawaamisha ama waxyaabaha saaciiday Soomaalida waxa la sheegay dadka diinta aad u qaatay ugu nafaaftay inay ka aqoon ahaantaada iyo taariikhda fiirsid maxay tahay cawaamisha saaciid Soomaalida inay si dhaqso diinta u qaataan oo nafaafiyaan. أخونا الكريم أرض بفضل من الله فضل إلهي Soomaalidii 4.5 waxaa ku soo qaybsatay Djibouti 2000 khalad sax hal xaq waxay noqotaba Soomaalidaas wax gaalaa kuma jiraan meeshaan ugu dan leeyahay xitaa usul markaa abtirso inta la ogyahay gaal kuma jiro هذه نعم إلهي wax kala yaab leh 70 sano ayay gumaysiga haystay gobolada qaar kamid 80 sano haystay 1885 shirkii Berlin waxay ka dambeeyay Soomaaliya waa la haystay dad gaalaway ma jiraan kaniisadii lagu dhisay magaalada Baydhabo juhud badan la geliyay في أقوانتيني ضد إسكا يا الخربان وكسب بها لكن ضد قالان لين أيان أنت أنا نحلقهم بكسب بها نقلين محمد اللي يجري روما كل انتهى سام في المرة كل انتهى حد بربر كان مركي هيقدم ببربر كان اسمه بربرتي ضد قحي حد أباب دبل إنه قوضة كان إن شاء الله إلهي بكفلا إنه حلين قائد دون مفلا مركي وحكى لي فيه dadka diinta noo keenay horta col ma keen dacwayna waa ani in badan baan sheegay dhul ay diintu dacwo ku gaartay oo dib u gaaloway ma jiro laakiin dhul oo faatixiin mujaahidiinta muslimiintu ay tageen oo dib looga soo noqday waa dhowdhowey waxaa ka mid ah talyaani baa ka mid ah muslimiintu waxay ka tali jireen 200 sano koonfurta talyaaniga dowladdii aqaaliba magaalada Palermo ayaa caasimad u ahayd gobolka Seychelles Saqaliya Andalusia ka mid ah marka ugu horeysa waxa weeyaan diintu waxa lagu keenay an tariiq dacwa ila Allah wa an tariiq qanaaca silm wajadil billati ahsan hadi awalan وثانيا dadka keenay waxay u badnaayeen dad mustaqireen ganacsato oo magaalooyin sameystay ninka ganacsato markaas waa loo baahan yahay dadka xoololeyda waa u baahan yihiin ganacsatas waxay ahaayeen dad ganacsigooda ay ugu weyn tahay dacwada ugu weyn tahay ammaano iyo akhlaaq suuban in naxariis leh marka waxaa lagu soo islaamay mabaadi'doodii adag ayadoo 40 qof feel ugu jirto badeecada in laga gadan rabo aadanka hadduu dhaco wuxuu leeyahay jooji waa soo tukanaya waxyaaba ay la yaabaan waxaa ka mid a lagu soo islaamay nin baa macaamil dhex maraya lacag baa ninkaan casoo raada xisaabtamay sanad markuu u yimaado wuxuu leeyahay ayaan markaan xisaabtanay nin xisaabta khalad bayd 20 diinaar 30 diinaar baan i soo raacday marka lacagta qaatay ani ma ogi waa u gashay maxaa isaga sheega wala weyda inni akhaafu Allah rabbul alamin ma in ilaahay baa jiri doonta la xisaabtamay doona yawma yaqumu rabbul alamin ilaaha كو waxay ganacsaas qofka ma laga dhintay gaal way sooma dir sooma wala loo taasiinay ma xanuunsaday wala boqonaya dib ma ku dhacay waa loo gargaaraya la yanaakum Allah alladhina yuqatilukum fi din wa yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsidu ilayhim in Allah yuqsid tiba lagu soo islaamay marka bitadriij ay baydan u faaftay dadka marka muslimiintii oo waxa kala jirtay culimo oo dadka dhex galaysa oo dhaqankooda wax ku fahansinaysa alifbeetikalka carabiga ayaa waxa loo rogay luqad Soomaali anaga waxaan aaminsanahay in 800 sano ka hor la diyaariyay aybi koreyd Soomaali alif waxmaale Oscar الكورية الفلسطينية الفلاغوثي
tiiba marka waxay keentay in dadka lahjada ay kasaan ay fahmayaan dabacada ay yaqaanaan lagula hadlo qaabkan waxaa kaloo ay culummadu ay samayn jireen in luuqadooda intay barteen ayaa luuqadda ayaa nashiid diin looga dejin jiray marka dadaalka culummada dadka zaahidiinta ahaa ganacsatadii dadkii ka soo qaxay jaziira carabiya abaaro darteeda ama colaad darteeda u soo guuray ayagaa hor dadkaas waxaan dad aad u tarma عواملها اسكو تجا مركز ساعدتي intaas cawaamil ay soo tagtay markii qolo ay guulaystay qolo kale ku soo biiraysay waxyaabaa aan ognahay waxaa ka mid ah ganacsadii dhulkeena joogi jirtay iyaga waxaan ganacsano ahayo nin yaman wax laga soo sheegay in baa dooro u keenay ama digaag u keenay harabta irbad baan rabaa irbad idunteed ninka ku qanacay intaasaan rabaa digaag uu nasiiyay lacag ma bixin lacag badan ma jirin ganacsi waa muqaayad shay lagu bedesho ninkii yaman buu tegey wuxuu yidhi ikhwaaye التجارة هنا رائج يعني ganacsiga xag aad buu u fiican yahay Soomaaliya يعني متقيس احنا اكلنا دجاج كامل ببره ضرر انا حكو عني هو قدرنا عربت هذا تيمر waxay keeneen ganacsi lagu soo bataan akhlaaqda lagu soo islaamo dagaal ma jirin xolaad ma jirin bil qanaaca wal jidaal billati ahsan تيمر waxay keeneen diinta mufaafta ninka Soomaaliga maad markii la weydiiyo adiga ku dhalay culimadii ducaadii khayrka timid isirka ma galaya mise mushrikiinta halka loogu yimid oo islaami ba ku dhalay يعني يا سؤال تاعنا صوما عادي ما صنت